قيمة أفراد وركب على دين عدنا سيد عالم كلن ولحدي بشي أفراد لبعضنا تانية لورك وجود من دون ده كمان كن أوقف أي يجون السوق صباحي مجال يرفان حرونتا ذلك أرمانيا كوا سوديدن كوريتشنتا قوي وجود من أسربيتشان كعنت لقى ساري قبل كهرباء خريجا dadka ayaa waxay isugu soo bixeen fagaraha caasimada ee loo yaqaan fagaraha xorta ah ama markaasi fagaraha weyn ee xorta xorriyadda beerta xorriyadda oo kale halkaas oo ay dabaldeg ku sameeyeen dadka isla markaana ay ku soo bandhigeen cadadooda iyagoo wadooyin kala xiray ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nicole Pashinyan ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dalkaasi Ilham Aliyev ay markaasi uu isku dhiibay waxaana la sugayaa shirka ugu dambeyn lagu kala saxanayo deegaanada la kala wareegaya ka dhici doona Brussels halkaas oo ay ku tilmaameen in ay siiso ay yiraahdeen Azerbaijan dhulkeena gudoomiyaha golaha mucaaradka Qigan Manouyan ayaa waxa uu ku eedeeyay dawladdu inay doonayso inay bixiso dhulka oo dhan waxay bixinaysaa dhulkeeni isla markaana waxa lagu saxiixayaa ayuu yiri magaalada Brussels madaxweynaha dawladda dalkaasi Ilham Aliyev ayaa waxa uu ku sii socdaa magaalada caasimada ee Brussels ee dalka Belgium sidoo kale midowga Yurub fadhiga oo isagoo la kulmi doona madaxweynaha golaha madaxtooyada ama golaha loo yaqaan European Council-ka Nicolas Charles Michel Aliyev iyo Pashinyan waxa la filayaa inay wada hadaladaasi ay ku dhameeyaan heshiiskii ugu dambeeyay laguna tafqiitiro 6,500 qof ayaa ku dhintay dagaalkii dayrtii labaad ka dhacay halkaas markaas Maria dhiig la kala furtay kadib markii ciidamadu ay weerar baan ku qaadeen reer Asadi dhinaca markaasi gobolka 30 sano laga haystay dalka Mareykanka ayaa markale waxa uu sheegay in isagoo raacaya tubta cusub ee wada hadalada G7 dalalka la yiraahdo ay soo saareen